halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar taleefanka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com duhur wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa maalin Arbaca bisha Juun ay tahay 9 sanadku waa 2021 goor sheegtu waa 2 duhurnimo oo gowa wararkaanu maalinkan maanta idin haynana waxaa ugu mudan shaqaale miinasaaro Afghanistan lagu laayay kuwa caafimaad oo iyana koonfurta Suudaan lagu laayay gaarisana qiimaha sicirka baabuurta dadweynaha oo kor u kacay kuna qasbay dadku inay lugta miciin bidaan mii horaan aan ku raaci jirnay qiimo ka badan baa lagu raacihaa marka saas awgeed yaa dhibaato weyn nooga soo raacday 100 shilin ku sii raac 100 shilin ku imow waa awoodi laanahayba 100 shilin maadaama ay noqotay inaan lugaynayba danta nagu qasbaysaa iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ciyaarihiina ka mid yihiin waa barnaamij ay wada jir soo saareen Kowsar Maxamed Cabdilaahi iyo Xasan Cali Geyle anigoo Cabdiraxmaan Cali Dambiilahina aan idin la socodsiinayo ee akhyaaray duhur wanaagsan qodobadaas oo fidsan dhageystayaal weyn oo soo socdaan sida aad nooga barateen balse marka hore aynu ka horeyno wararka caalamka oo Cabdilqaadir Yuusuf diyaar inoo leeyahay Cabdiqaadir mahadsanid Dambiil xukuumadda Beijing ayaa ka falcelisay qorshaha uu Mareykanka ku qarash gareynayo 250 milyan oo dollar si looga hortago awoodda dhaqaale ee sii kordhaysa ee Shiinaha sharciga oo ay ansixiyeen aqalka Senatka Mareykanka ayaa sameyn doono maalgelin cilmi baaris ah oo ku aadan meelaha ay ka mid ka yihiin sirdoonka macmalka ah Shiinaha ayaa horeyba u lahaa qorshayaal u gaar ah oo uu ku horumarinayo tiknoolajiyadda kaas oo uu kaga gol lahaa inuu kula tartamo dunida gaar ahaan Mareykanka hindisaha Mareykanka waxa uu wali ku xiran yahay inuu ka gudbo golaha wakiilada saraakiisha Shiinaha ayaa sheegay in talaabadani ay ka buuxdo waxa ay ku tilmaameen fikrado dhan u janjeera afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo la yiraahdo Wang Wenbin ayaa shir jaraa'id ku sheegay in Washington ay tahay inay joojiso talaabooyinkaasi hindisa sharciyeedka ee xogta la xiriirta Shiinaha oo uu ansixiyay aqalka sanadka Mareykanka waxaa ka muuqdo marin habaabin lagu minjixaabinayo tubta horumarka siyaasadda gudaha iyo dibadda waxay buunbuuninaysaa khatarta Shiinaha waxa kale oo qayb ka ah dagaalkii xumaa ee soo jireenka ahaa ee lagu hayay arrimaha gudaha Shiinaha sida Taiwan waxaa dib boorka looga jafayaa afkaartii aan macnaha badan ku dhisnayn ee dagaalkii qaboobaa kuwaasoo lid ku ah iskaashiga iyo himilooyinka ay doonayaan inay higsadaan shucuubta labada dal ugu yaraan 10 qof oo ku lug lahaa howlo mina baarista ee waqooyiga Afghanistan ee Baghlan ayaa la toogtay madaxa hay'adda samafalka ee mina baarista ayaa sheegay in koox maxalli ah oo ka tirsan Taliban ay gacan ka geysteen bacsiga raggii weerarka soo qaaday El Salvador ayaa lacagta Bitcoin u ansixisay inay tahay lacag sharci ah oo la isticmaali karo waana dalkii ugu horeeyay ee Bitcoin ka dhiga lacag rasmi ah oo qaran waxay sheegtay in dollarka Mareykanka uu sii ahaan doono lacagta sharciga ah hase yeeshee hay'adda lacagaha adduunka ee IMF ayaa walaac ka muujisay tallaabadaasi qaramada midoobay ayaa cambaaraysay dil 2 shaqaale oo samafal ah loogu geystay gobolka bartamaha Suudaanta Koonfureed dilkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay u sii kordheen dilalka ka dhaca guud ahaan dalkaasi wariye ka tirsan BBC-da ayaa sheegay inay jirto cabsi laga qabo in dilkan uu horseedo in uu hakad ku yimaado howlihii samafalka xilli malaayiin qof oo reer Suudaan ah ay ku tiirsan yihiin gargaarka ee hay'adaha samafalka gaarsiiyaan ugu dambeyntiina weeraro looga shakisan yahay in Israa'iil ku qaaday Suuriya ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 8 dagaalyahan oo ka mid ah ciidamada daacadda u ah dowladda Bashar al-Assad Israa'iil ayaa marar dhif ah ka hadasha warbixinada noocaas ah hase yeeshee waxaa la og yahay in marar badan ay horay weeraro ugu qaaday Suuriya warkii duhurnimada waa naga inta Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay Cabdilqaadir Yuusuf Cali oo inala socodsiinay wararka caalamka ee BBC-da ee dhageystayaal u diyaar garooba idaacadeena duhurnimo oo faahfaahsan aynu ku bilownaa wararka laga helayo gobolka Baay ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dawladdu ku lahaayeen deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira magaalada Baydhabo
sida ila wareedyo kala duwan u sheegeen BBC-da dagaal culus ayaa ka dhacay daynuunaay oo saldhig military ay ku leeyihiin ciidamada dowladda waxaana la soo wariyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo kala gaadhay labada ciidan ee dagaalamay gurmad ciidan oo ka kala tegay xeryaha baydhabo ayaa gaadhay daynuunaay si ay gacan u siiyaan ciidamada dowladda ee dagaalku qabsaday isgaadhsiinta baydhabo ayaa go'an taasoo adkaysay in xog badan laga helo dagaalka ka dhacay halkaas wixii faahfaahin ay ka soo kordhana waxaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadaheenna dambe 10 miinasaarayaal ah oo la shaqaynayay hay'ad samafal oo laga leeyahay Britain iyo Mareykanka waa shirkadda lagu magacaabo Hello Trust ayaa laga dilay waqooyiga Afghanistan ku dhawaad 10 qof hay'adan ayaa sheegtay in 16 ka mid ah shaqaalaha miina baarista Afghanistan ay sidoo kale si xun u dhaawacmeen markii dawladdu soo weerartay xaruntooda madaxa shirkaddaas James Cowan ayaa BBC-da u sheegay in ururkoodu ka shaqeynaya Afghanistan tan iyo 1988 ayna sii wadi doonaan shaqada ay halkaasi ka hayaan afaahinta warkaas waxaa inoo haya xasan cali gelle madaxa hay'addaasi miina baarista Hello Trust James Cowan ayaa sheegay in raggaasi dableyda ay soo galeen xerada ay ku sugnaayeen shaqaalahaasi iyagoo markiiba bilaabay in shaqaalahaasi ay mid ugu tagaan sariirahooda oo ay ku laayaan waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi kii ugu xumaa ee soo mara hay'addaasi hay'addaas ayaa muddo ka badan 30 sano waxa ay ka shaqaynaysay arrimaha miina baarista iyo in walxaha kale ee qarxa ay ka saarto halkaasi Cowan waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan ay kala cadeen sababta loo bartilmaameedsaday xeradaasi ay degan yihiin shaqaalaha hay'addaasi qof ka mid ah dadka goobjoogayaasha ahaa ee ku sugnaa xeradaasi markii uu weerarka dhacayay ayaa BBC-da u sheegay sida ay ugu suurto gashay inuu ka badbaado weerarkaasi dableyda hubaysan waxay 2 qof ku toogteen gudaha xerada kadibna 2 qof oo kale ayay qol gudihii ku toogteen aniga madaxa ayaa iga dhacday xabadda dhulka ayaan ku dhacay balse kadib waan sare kacay waxaana ii suura gashay inaan daaqadda ka baxo 10 qof ayaa lagu dilay weerarkaas halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo haatan la geeyay isbitaalka saraakiisha maxalliga ee deegaankaasi ayaa weerarkaasi ku eedeeyey ururka Taliban hase yeeshee Taliban waa ay beeniyeen inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi waxaase madaxa hay'addaasi Hello Trust James Cowan uu sheegay in koox ka tirsan Talibanku ay markiiba u soo gurmadeen oo ay ceyrsadeen raggii weerarka soo qaaday rabshadaha ayaa sii xoogaysanaya guud ahaan dalkaasi Afghanistan xilli ciidamada uu Mareykanka hogaamiyay ee gaashaanbuurta NATO ay ka baxayaan goobihii ugu dambeeyay ay ka joogeen dalkaas Afghanistan arrintaa oo keentay in dadka shacabka ee dalkaas Afghanistan ay ka baqaan in mar kale dalkaasi uu ku hobto dagaal sokeeyo oo ay xaaladiisu sii xumaato aad buu u mahadsan yahay xasan cali geelle oo warbixintaasi nala socodsiinayay haatanna shacabka magaalada Gaarisa oo cabasho ka muujiyay qiimaha sii kacaya ee baabuurta dadweynaha lacagta lagu raaco arrintaas oo ku qasabtay inay lugta miciin bidaan haddaan xaal isbedelin waxaa ka mid ah gabadhan oo BBC-da la hadashay magacayga waxaa waay Suldaana Cumar saameynta weyn oo naga haysata waxaa waay suuqan asaga waxaa waay sidii corona loo sheegay horta beecsharo ma laha lacagta laga helana ma laha transportkeena saameyn weyn bay nagu yeelatay qiimihii horaan aan ku raaci jirnay qiimo ka badan baa lagu raacihaa marka saas awgeed yay dhibaato weyn nooga soo raacday 100 shilin ku sii raac 100 shilin ku imow waa awoodi la'nahayba 100 shilin maadaama ay noqotay inaan lugaynayba danta nagu qasbaysaa kontonkaaba la awoodin yoomii 100 shilin bishii 3,000 bay hadda bishii 6,000 bay noqonaysaa bishii 6,000 intee laga keeni oo gawaari kale lagu raacay ma awoodno saa awgeed haddee sidan dhib baan ku qabnaa allaha noo dhibdhaama dawladdana ha naga dhaafta dhibkan waxaan ay iskaga dardarsanayaan dadweynaha lacag ma haya dawladda ha naga dhimaana dadkaanna ayagana tabar baa haysata annagana tabar baan haysata dawladda waxaan ka codsanaynaa dhibkan na haysta shidaalka nagu haysta inay naga dhimaan oo dhibkan naga dhaafaan oo maxay ahayd gawaaridan hadda shidaalka lagu qaaliyay annagu saameyn nagu keenay ma gawaari kaliba maba haba maxaan rabnaa shidaalkan sidan la yeelahay dawladda waxaan ka codsanaynaa inay naga dhimaan aad bay u mahadsan tahay waxay ahayd mid ka mid ah gabdhaha ku sugan Gaarisa oo ka cabanayay xaalka sicirka gaadiidka lagu raaco magaalada Gaarisa oo kor u sii kacaya bal haddii aynu eegno waxa ay qodobka ka leeyihiin qaar ka mid ah dhageystayaasheena dhageyste lagu magacaabo Fuad Cabdullaahi Cumar oo jooga caabud waxa uu leeyahay magaalada Gaarisa sicirka baabuurta lagu raaca kacay runtii aad ayaan uga xumahay waxayna ila tahay buu yiri waxa sababay shidaalka oo kor u kacay iyo xayiraadihii buu yiri maciishada oo iyana kor u kacay dhageyste kale oo lagu magacaabo Yaxye Ismaaciil oo isna jooga Garbahaarey waxa uu sicir bararka la sheegay inuu
gaarisa ka jiro runtii waa arrin walaaceeda leh waxaana laga doonayaa maamulka waqooyiga kenya iyo dowladooduba inay ula timaado qorshe wax looga qabanayo arrintaas kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo ka aragti dhiibanayay qodobadii idaacaddeenna duhurnimo weli dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa b b c xilli goorshoogtu ay bariga afrika tahay 2:10 daqiiqo b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba iyadoo shalayto nin gaari marsiiyey dad muslimiin ah oo ku lugeynayay beer ku taala magaalada london ee gobolka ontario ee waddanka canada halkaana uu ku dilay 4 qof oo isku qoys ah oo muslimiin ah oo ku nool dalkaas waxa ay walaac ka muujiyeen guud ahaanba dadka muslimiinta ee waddankaasi haweenka muslimiinta ayaa sheegay in walwalku uu ku badan yahay maadaama ay fududahay in la aqoonsado xijaabka ay xidhan yihiin awgood muslimiintu waxay dowladda dhexe ee waddanka canada ka codsadeen inay wax ka qabato arrimaha muslim nacaybka ee sii kordhayey sannadihii lasoo dhaafay haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa canada ka soo diray duraan xasan yare muslimiinta ku nool dalka Canada oo ay Soomaalidu ka mid yihiin ayaa dawladda dhexe ka codsaday in wax laga qabto arrimaha muslim nacaybka ee sii siyaadaya sanooyinkan dambe sida uu sheegay Axmed Cumar oo imaamka masaajidka Salaam Islamic Center ahna sidoo kale gudoomiyaha mid ka mid ah hay'adaha ka howlgala magaalada Edmonton. Arrintan waa mid aad oo laga naxo waana mid taabanaysa guud ahaan dadka muslimiinta ku nool dalka Canada oo ay Soomaalidu ka mid yihiin. Haddii nahay muslimiinta ku nool dalkan waxaa codsi u dirnay dowladda dhexe dalka Canada waxaa codsanaynaa in wax laga qabto muslim nacaybka. arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay nin baabuur dardarsiiyay qoys muslimiin oo ka koobnaa 5 qof halkaas oo 4 ka mid ah qoyskaasi ay ku geeriyoodeen halka wiil ka haray reerkaas hadda lagula tacaalayo isbitaalada ku yaala dalka Canada. Taliyaha booliska London Ontario ayaa sheegay in arrintan ahayd mid si ula kac loo sameeyay dadkaasna loo bartilmaameedsaday sabab la xiriira diintooda darteed. waxaan rumaysanahay in taasi ay ahayd ficil loo sameeyay si ku talagal ah lana bartilmaameedsay dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dhibaatadaasi waxaan rumaysanahay in dhibanayaasha loo beegsaday diinta islaamka ee haystaan aawadeed. arrintan waxay cabsi gelinaysaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan dumarka sida ay BBC-da u sheegtay Deeqa Maxamuud oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada kuna nool magaalada Toronto ee gobolka Ontario. cabsi weyn runtii nagu sii abuuraysaa sababtoo ah anagu xijaabkeena anagoo xiran oo labiskeena islaamiga xiran baa maalin kasta shaqooyinka iskuulada iyo magaalada ku marnaa. dhibaatadan dhibaato waxa weeyaan oo soo laalaabatay hadda ka hor magaalada Edmonton gabdho baa intiisa camal Soomaaliyeed oo xijaabkooda xiran ugu dhibaateeyay oo la isbitaal u galeen sababtoo ah waa haween muslina runtii haweenka muslimka ah ma qarsoomi karaan oo de qofkii diintiisa iyo dharkiisa xijaabkiisa baa sheegayay inuu qofku muslim yahay marka anagu jidka marayna xijaabka aan xirannahay runtii walwalka uu nagu jiraa markastaba aan guriga ka baxno haddana de waan u jeednaa weli dhibaatada lagu sameynayo gabdhaha muslimka ah waxaan aad iyo aad rabnaa inaan u sheegno dowladda Canada inay runtii wixii ay ka qaban karaan wax ka bedelaan in cunsurnimada gabdhaha muslimka ama dadka muslimka lagu hayo wax laga qabtaa laga hadlaa. dhanka kale xildhibaan Faysal oo ka socda xisbiga mucaaradka ee NDP ayaa sheegay inay dagaal ugu jiraan sidii loo ciribtiri lahaa arrinta muslim nacaybka isagoo sidoo kale muslimiinta ugu baaqay inay feejignaan dheeraada muujiyaan. طبعا waxaa loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan maaragtay xisbiyada dhan isu yimaadaan oo aan arrintan soo ciribtirno sharciyo cusub ka soo saarno maxaa yeelay waxani waa mid ku salaysan nacaybka muslimiinta oo sii gaamuray markii ugu horeysay aan oran karayno in dhammaan hogaamiyayaasha xisbiyada kala gedisan ay u qiraan in arrintan ay tahay arrin argagixisa ah marka waxa aan sheegi lahaa dadkaas argagixisada ah soo banaan baxayna in sharciyo adag laga soo saaro oo loo ciribtiro waxna laga qabto ayaan ku dagaalamayna aniga iyo hogaamiyahayga iyo dhammaan xildhibaanada ka tirsan xisbigayagan iyo dimuqraatiga ah arrintan waxaa loo baahan yahay muslimiintuna inay foojignaadaan dowladana ay maaragtay badbaado weyn ay u samayso dadka muslimiinta ee diintooda lagu weeraray. Khatra Cabdullaahi waa hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Edmonton waxayna sheegtay in arrinta muslim nacaybka horey u saameysay dhaawac culusna loo geystay gabadheeda ayna ilaa iyo hadda ka daba laabato maxkamadda. gabadheeda dhib baa loo geystay waxaana loo taargeedsanayaa xijaabka ee xiran tahay weliba bannaan laguma dilin iskuulka dhexdiisa lagu dilay dhowr mar ayaa la soo weeraray marka u dambeysay nabar xun baa madaxa laga gaarsiiyey marka way dakhran tahay weli saasay tahayna arrimihii maxkamadda
maxkamadii aan furnay ilaa hadeertaan way socotaa. waxaan dhihi lahaa dadka Soomaalida dhageysanayaan dhacdadan way dhacdaa mar walba laakiin ka foojignaada. ugu dambeyntii maahan dhacdadani tii ugu horeysay oo nooceeda oo kale oo ka dhacday dalka Canada, balse waxaa la sheegayaa in dhacdooyinka noocan ay sii siyaadayaan sanooyinkan dambe. si kastaba ha ahaatee dowladda dhexe ee dalka Canada ayaa sheegtay inay ka xun tahay dhacdooyinka noocan oo kale, waxaana ra'iisul wasaaraha dalka Canada uu tacsi u diray qoyska ay dhibaatadii ugu dambeysay soo gaartay, isagoo sidoo kale sheegay in dowladda Canada ay qaadi doonto tallaabo wax looga qabanayo arrimaha noocaana. aad buu mahadsan yahay Duraan Xasan Yare oo warbixintaasi nala socodsiinayay. haatanna madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa ururada mucaaradka deegaankaasi ku eedeeyay inay hayso fahan darro siyaasadeed xilli doorashada dalka ay ka harsan tahay muddo 2 toddobaad ka yar. Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta ka hadlayay munaasabad xariga lagaga jarayay isla markaana lagu dhagax dhigay wadooyin cusub oo laga hirgelinayo caasimadda deegaanka ee Jigjiga. hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda iyo ururada siyaasaddu ay isku hayaan sidii cid waliba ay u kasban lahayd kalsoonida dadka codbixiyayaasha ee dhowaan codkooda ka dhiiban doona doorashada loo ballansan yahay inay dhowaan ka qabsoonto guud ahaanba Itoobiya. waxaa muuqata damiino siyaasadeed oo runtii aad iyo aad u ballaaran iyo madalaysnimo siyaasadeed oo foolxun oo aad moodo dadka qaarkii inay siiyeen darajo ah inay shacabka iyagu matalaan ama keligood ay wadan yihiin ama keligood ay yihiin dad xorriyad raadinaya. waa qalad fikirkaas. deegaanka waa loo wada dhashay, nin waliba tuulo ka soo jeeda, cid ka fiicani ma jirto, cid ka miisaan badani ma jirto, waa la wada leeyahay deegaanka. nin walboo deegaanka ku dhashayna xaq buu u leeyahay inuu masabna qabto, fikirna yeesho, tartanna galo. marka cid iyadu ku astaysan inay si gaara ummadda uga duwan tahay oo halgamaa ay tahay, cid kalena ay tahay dabadhif ma jirto haba yaraata ma jirto. waxay taasi sii fol xumaanaysaa markaad aragto kuwa halgamaaga isku sheegaya oo sii daba fadhiya kuwii shalay ay lahayn dabadhif baa siiyey shacabka hagardaaminayay, kuwii shacabka leynayay ee dalka dhibaateynayay. marka dabada laga fadhiisto ayay sii caddaanaysaa in mabda iyo wax laysku hayaa ayna jirin. marka kuwaan waxaan leenahay haba yaraatee wax macno badan oo siyaasadeed oo dheeranaysaan ma jirayso haddii ayna waaqica ayna wajihin xaqiiqada haddii aad shalay dadka waxaad ku dilayseen maamul bula shaqeeya, maanta idinkii baa u dabamaraya meelihii aad islahaydeen maamulaha ka jira. marka dadkani dad iyagu aad samaysateen maaha, ilaahay baa leh wixii muxuu ahaye ilaahay ku gartaa ayay helayaan. laakiin ashkhaas meel fadhida oo da-dii ay ummadda ugu nixi lahaayeen iyagu dan shaksi raadinaya iyo kuraas raadinaya waxaa weeye wax laga cawdulgulaysto weeyaan. kaas waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar oo ka hadlayay xilli ay daah furayeen wadooyin cusub sidoo kalena dhagax dhigayeen kuwa la dhisi doono. haddaba eedeynta u soo jeeday mucaaradka falcelintooda idaacadaha dambe ayaad ku maqli doontaan. welina dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa BBC. haatanna aynu aadno dhanka iyo Uganda. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa magacaabay golihiisii wasiirada ee cusbaa oo ka kooban 31 wasiir iyo 50 ku-xigeen, waxaana golaha ka dhex muuqda 10 dumar ah halka madaxweyne ku-xigeen uu magacaabay haweeney. Kowsar Maxamed Cabdilaahi ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inuu diyaarisay. Jessica Alupo oo ah haweeney gaashaanle sare ahayd oo howlgabtay ayaa ah madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dalkaasi, waxayna noqonaysaa haweeneydii labaad oo loo magacaabo xilkaasi taariikhda waddanka Uganda. haweeneydan haatan loo magacaabay madaxweyne ku-xigeen ayaa horey u ahayd wasiirka waxbarashada dalkaasi. Robina Nabanja oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga haya talada dalka ayaa iyaduna noqonaysa ra'iisul wasaaraha dalka iyo hogaamiyaha howlaha dowladda ee baarlamaanka. haweeneydan ah ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ayaa horey u ahayd wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dalka Uganda. Rebecca Kadaga oo ah qareen isla markaana in muddo ah ku soo dhex jirtay siyaasadda oona ahayd haweeneydii ugu horeysay ee noqoto gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iyaduna noqonaysa ra'iisul wasaare ku-xigeenka cusub. waxay sidoo kale mas'uul ka noqon doontaa wasaaradda bulshada bariga Afrika. golaha wasiirada waxaa ka mid ah xubno badan oo ka tirsan ciidamada qalabka sida. abaandulaha ciidamada dalkaasi Gaashaanle Muhoozi ayaa isna noqonaya wakiilka ciidamada militariga ee baarlamaanka Uganda. mid ka mid ah qareenada gaarka ah ee madaxweynaha Kiriowa Kiwanuka ayaa isna loo magacaabay xeer ilaaliyaha cusub. Sam Kutesa oo muddo dheer ahaa wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi ayaa laga saaray liiska golaha wasiirada cusub. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa wajiyo cusub ku soo daray golaha wasiirada
kadib markii 20 wasiir oo hore oo uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenkii hore ay ku guuldaraysteen kuraasta baarlamaanka ee doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday bishii Janaayo. aad bay u mahadsan tahay Kawsar Maxamed Cabdilaahi oo warbixintaasiina la socodsiinaysay. haatanna haddii aynu eegno dhanka iyo ciyaaraha waxaa jimcaha la fili doonaa inuu bilowdo koobka Yuuraha ama koobka lagu magacaabo Euro Cup-ka ay ciyaaraan wadamada Yurub oo la filayo inuu jimcaha bilaabmo iyadoo la sii qeybiyeyba kooxihii guruubada ku kala jiray iyo sida ay u ciyaari doonaan waxaana ugu horeysa oo la fili doonaa ciyaar ay wada ciyaari doonaan Turkiga iyo dalka lagu magacaabo Switzerland. ciyaaraha kale ee dhici doona caawa muhiimka ee saaxiibtinimada xulalka waxaa ka mid ah USA iyo Costa Rica. haatanna baafinta maanta waxaa sii wada jira stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi idinkaga soo tebinaya anigoo ah Faysal Bishaar Aligo iyo Caaisha Siciid Xasan Caash. mahadsanid Aligo. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Safiya Xaaji oo joogto Xudur waxay baafinaysaa Cabdulaahi Xaaji waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2008. haddaba haddii uu maqlayo Cabdulaahi Xaaji ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Safiya Xaaji iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Xudur. Basra Geyre Mire oo joogta Kenya waxay baafinaysaa Yaasir Aways Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jowhar sanadkii 2013. haddaba haddii uu maqlayo Yaasir Aways Axmed ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Basra Geyre Mire iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Nairobi. Xaawo Cumar Aadan oo joogto Xudur waxay baafinaysaa Cabdirasaaq Cumar waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2009. haddaba haddii uu maqlayo Cabdirasaaq Cumar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xaawo Cumar iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Xudur. Sacdiye Cabdiqaadir Xaashi oo joogta Kakuma waxay baafinaysaa Maryan Cabdulaahi Jeylaani waxa ugu wardambeysay sanadkii 1993 iyadoo ku sugan Kismaayo. haddaba haddii ayna maqlayso Maryan Cabdulaahi Jeylaani ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Sacdiye Cabdiqaadir Xaashi iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kakuma. Maryan Cabdulle oo joogto Baardheere waxay baafinaysaa Mustafa Axmed iyo Cabdilla Nuur waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Suudaan 2016. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Maryan Cabdulle iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere. Amiin Geedow Axmed oo jooga Cadale waxa uu baafinayaa Yuusuf Geedow Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sweden sanadkii 2013. haddaba haddii uu maqlayo Yuusuf Geedow Axmed ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Amiin Geedow Axmed iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Saare Aadan Jaamac oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Samiiro Aadan iyo Jimcaale Aadan waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan France 2015. haddaba haddii ayna maqlayaan Samiiro iyo Jimcaale ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Saare Aadan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere. Salmo Muumin Cali oo joogta Cadale waxay baafinaysaa Fartuun Muumin Cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen sanadkii 2012. haddaba haddii ayna maqlayso Fartuun Muumin Cali ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Salmo Muumin Cali iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Aadan Cali Gooni oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Nuur Cali Gooni waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itaaliya 2015. haddaba haddii uu maqlayo Nuur Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aadan Cali iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Xabiibo Macalin Nuur oo joogta Waajid waxay baafinaysaa Faadumo Macalin Nuur waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Sacuudiga sanadkii 2008. haddaba haddii ayna maqlayso Faadumo Macalin Nuur ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xabiibo Macalin Nuur iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Xudur. Sacdiyo Cumar oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Shariifo Maxamed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Angola 2013. haddaba haddii ayna maqlayso Shariifo ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Sacdiyo Cumar iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere.
owliyo isaaq ibraahim oo joogo xudur waxa uu baafinayaa nuuno isaaq ibraahim waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman sanadkii 2004 haddaba haddii uuna maqlay nuuno isaaq ibraahim ama way jirta cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo owliyo isaaq ibraahim ayadoo wix waraha loosii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur yaasiin xuseen oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa saciid xuseen iyo samatar xuseen waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan romania 2015 haddaba haddii ayna maqlayaan saciid iyo samatar amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo yaasiin iyadoo wixii waraa loosii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere xaawo maxamed yarow oo joogta waajid waxay baafinaysaa mishaamo maxamed yarow waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman sanadkii 2006 haddaba haddii ayna maqlaysa mishaamo maxamed yarow ama way jirta cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xaawo maxamed yarow ayadoo wix waraha loosii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur muxubo aadan oo joogto baardheere waxay baafinaysaa cali aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan marocco 2016 haddaba haddii uuna maqlaya cali aadan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo muxubo aadan iyadoo wix waraa loosii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere dahabo xaaji xasan oo joogta xudur waxay baafinaysaa nuurto xaaji xasan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga sanadkii 2004 haddaba haddii ayna maqlayso nuurto xaaji xasan ama way jirta cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyey dahabo xaaji xasan iyadoo wix waraha loosii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur sareedo cumar cali oo joogto baardheer waxay baafinaysaa markabo cali fiidow waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan fiinland 2016 haddaba haddii ayna maqlayso markabo cali fiidow ama way jirta cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo sareedo cumar cali ayadoo wixii waraa loosii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere xasan ibraahim oo jooga xudur waxa uu baafinayaa cadaawe ibraahim waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kenya sanadkii 2006 haddaba haddii uuna maqlayo cadaawe ibraahim ama way jirta cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xasan ibraahim ayadoo wix waraha loosii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur samiixo cabdi nuux oo joogto baardheer waxay baafinaysaa ashkir maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan zimbabwe 2016 haddaba haddii uuna maqlayo ashkir maxamed amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo samiixo cabdi iyadoo wixii waraa loosii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere maryan isaaq mursal oo joogto waajid waxay baafinaysaa dahabo isaaq mursal waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan kenya sanadkii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso dahabo isaaq mursal amabay jirta cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo maryan isaaq mursal iyadoo wix waraha loosii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur faadumo cabdi oo joogto baardheer waxay baafinaysaa cabdiqaadir maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan maali 2015 haddaba haddii uuna maqlaya cabdiqaadir maxamed amabay jirta cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo faadumo cabdi iyadoo wixii waraa loosii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere maxamed cali deerow oo jooga waajid waxa uu baafinayaa dhaayow cali deerow waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan mandheera sanadkii 2003 haddaba haddii uuna maqlaya dhaayow cali deerow ama way jirta cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyey maxamed cali deerow iyadoo wix waraha loosii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur isniino maalin oo joogto baardheer waxay baafinaysaa aadan maalin faarax waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan niger 2013 haddaba haddii uuna maqlaya aadan maalin amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyey isniina maalin iyadoo wixii waraa loosii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ruqiyo salaad ibraahim oo joogto waajid waxay baafinaysaa maryan salaad ibraahim waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan goday ethoobiya sanadkii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso maryan salaad ibraahim amabay jirta cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo ruqiyo salaad ibraahim iyadoo wix waraha loosii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur ifraax cabdi nuur oo joogto baardheer waxay baafinaysaa farxiyo nuur waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan deelmaak 2015 haddaba haddii ayna maqlayso farxiyo nuur amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyey ifraax cabdi iyadoo wixii waraa loosii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere maslaxo macalin cali oo joogta waajid waxay baafinaysaa deeraan macalin cali waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan mandheera sanadkii 2006 haddaba haddii ayna maqlayso deeraan macalin cali amabay jirta cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo maslaxa macalin cali iyadoo wixii waraha loosii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur cabdi aadan yaasiin oo joogo baardheer waxa uu baafinaya aadan yaasiin faarax
waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan mongolia 2014 haddaba haddii uuna maqlaya aadan yaasiin amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiya cabdi aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. cabdiraxmaan cabdiyey cabdiraxmaan oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa maxamed cabdiraxmaan cabdiyey waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan beledweyne sanadkii 2017 haddaba haddii uuna maqlaya maxamed cabdiraxmaan cabdiyey amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdiraxmaan cabdiyey cabdiraxmaan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. nuurto cabdow ibraahim oo joogto baardheere waxay baafinaysaa mishaamo cabdow waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga 2008 haddaba haddii ayna maqlayso mishaamo amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nuurto cabdow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. baafinta ugu dambaysana maanta waxay naga soo gaartay niishaay maxamed cadow oo joogta xudur waxay baafinaysaa saare maxamed cadow waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan cadan yaman sanadkii 2005 haddaba haddii ayna maqlayso saare maxamed cadow amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiye niishaay maxamed cadow iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xudur. baafintiina maanta waa naginta sidoo kale dhegeystayaal idaacaddeenii duhurnimo ayaa naga intaasa